Waxaanu ka hadlaynaa caadooyinka haddii aad samayso aysan dadku kaa helin ama ay ku arkayaan si kale. Lambarka koowaad, faanka ama iska gadida dadka. Haddii mar walba aad dadka iska gaddo ama aad u faanto ama shakhsiyadaada aad dadka ku qanciso, badanaa dadku kama helaan dadka noocaasa. Ama dadku waxay ku arkayaan qof si kala ah ama qof aan maskax ama caqli badan aan lahayn. Lambarka labaad, ka dhexgelidda waxaan ka wadaa badanaa ma jecla dadka mar walba dadka ka dhexgala ayagoo sheekaysanaya ama ayaga oo hawl ku jira. Haddii aad aragtid badanaa qof mar walba dadka ka dhexgelaya hadalkooda ama waxa markaa ay sameynayaan, dadku ma jecla, wayna dhibsadaan. Maaha caado wanaagsan haddii aad badanaa dadka ka dhex gasho hadalkooda. Lambarka saddexaad, ahaanshaha qof aad u fiican. Badanaa dadku kama helaan qofka aadka u fiican oo wax walba sida ay tahay u sameynaya ama dadka ula macaamilaya si wanaagsan. Badanaa dadku waxay ku arkayaan inaad tahay qof daciif ah ama caqli badan aan lahayn. Marka sababaha qaar ay dadku kaaga aaminayaan inaad tahay qof daciif ah, macnaha dadku waxay rabaan inaad ula dhaqantid dadka oo dhan si kala duwan. Marka taas dadku waxay ku arkayaan inaad tahay qof daciif ah. Lambarka afraad, soo celin la'aanta waxyaabaha aad amaahato ama aad deynsato. Badanaa maaha caado wanaagsan haddii mar walba waxa aad qaaddo aadan soo celinayn. Badanaa dadku ma jecla dadka intay wax ka qaadaan aan u soo celinayn ama hadday wax ka deynsadaan aan deynta aan soo celinaynin. Lambarka shanaad, ahaanshaha qof maskax xiran. Badanaa dadka maskaxda xiran dadku ma jecla ama kama helaan. Haddii aad tahay qof maskax xiran oo aan wax badan fahmi karin ama dadka fikirkooda aan qaadan karin ama fikir aan keeni karin, badanaa dadku ma jecla dadka noocaasa oo aan lahayn meel loo raaco. Lambarka lixaad, afduubidda dareenka. Afduubidda dareenka waxaan ka wadaa dadku mararka qaar waxay ku jiraan jawi farxada, marna waxay ku jiraan jawi murug ah. Mararka qaar waxaa dhacaysa dadka qaar inay sameeyaan adigoo ku jira jawi farxada inay jawiga ka dhigaan mid muruga ah ama ay kugu bedelaan mid muruga ah. Ama dadka qaar waxay ku dareensiinayaan niyad jab mararka qaar adiga oo xaaladaadu ka adag tahay. Marka weligaa ka digtoonow inaad dadka dareenkooda aad afduubtid. Sababahana waa sababo la xiriira cilmi nafsiga. Badanaa dadku waxay dareemayaan mararka qaar in jawigooda uu yahay mid aan wanaagsanayn. Haddii aad jawigooda intaad ka dhex gashid aad ka dhigtid mid si niyad jab ah, ma fiicna. Qofkaasna wuxuu la kulmi karaa stress iyo walwal zaa'id ah. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, ha naga ilaawin inaad subscribe noo saarto. Mahadsanid.